ma dhegaysatay khudbaddii Fahad Yaasiin uu oga hadlayay dhiibistii qalbi dhagax. Waxa uu sheegay 3 qaybood oo ku lug lahaa dhiibistii qalbi dhagax. 3 qayboodna qofkoodna muusan magacaabin balse sifooyin ayuu tilmaamay. Waxaan rabaa inaan dul istaago marka hal sifo ka mid ah 3 sifo uu sheegay. yaad u malaysay inaan ku weydiiyaan rabaa sifada ayada ah. Qofka uu ku tilmaamay ama kooxda uu ku tilmaamay doqon yuu ahaa. yaad u malaynaysaa inuu ahaa doqon oo macnaha ay ka dhigan tahay kiiskaas in la dhex marsaday balse uusan ogeyn muhiimadda uu leeyahay iyo meeshuu u socdo iyo waxa lagala jeedo. sababta uu u yiri doqonna anigu waxaan ka fahmay qofkaas inuu damane ahaa damane ee arrintaas si qalad ah ama si hoose ee u hoos baxday balse uusan ogeyn waxa meesha ka socday. sifadaas ayuu u yiri doqon siday aniga ila tahay. kan actorka ka ahaase yaa waaye qaybta actorka ka ahayd yaa waaye waa qaybtii wax karkarinaysay ee waday karkarinta zaa'idka ah. anigu haddaan qiyaasay qofka uu kala jeeda doqon waxaan u malaynayaa inuu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sababtaan u leeyahana waa sababaynayaa oo Farmaajo mar la weydiiyey ayaa wuxuu sheegay inuu Cabdi Xaashi u yeeray Sambalosho u yeeray uu weydiiyey ninka arrimihiisa. Sambalosho Farmaajo wuu weydiiyey wuxuu u weydiiyey ninkan la soo qabtay iyo wuxuu yahay iyo meesha loo wado iyo waxa la sheegayo. Sambalosho wuxuu isha u yiri Farmaajo ninkan Ethiopia passport Ethiopian wata Ethiopia wada hadlayn Ethiopia u socda saas buu yiri in la dhiibo ayaan go'aansanay buu yiri. Cabdi Xaashi buu yeeray Cabdi Xaashi wuxuu yiri niyo nisaan baa leeyahay Cabdi Xaashiyo ninkan bal ila dhigeyso. mar labaad baa loo yeeray Sambalosho sidii buu sheegay. sidii markuu sheegay ninka laga dhigay nin safar ah oo dalkiisa rabo Ethiopian ay wada hadleen sidii buu ku baxay ninka oo ku dhoofay Ethiopian gacanta u galay. Farmaajo marka hadda ka hor waraysi u bixiyay ayuu wuxuu ku sheegay inay ka hoostay in uu yiraahdo ninka ambal aniga hal ii keenan waraysta aniga hal ii keeno inuu dhaho ayaa ka hoos baxday. afkiisa ayuu ka sheegay Farmaajo in arrintaas ay ka hoos baxday balse intii kale oo asagoo raadin karay ama waxa uu baari karay uu baaray. sidaa darteed anoo hadalkaas Farmaajo cuskanay in laga hoos bixiyo ayaan dareemayaa doqonkan asaga uu yahay.